deegaanada u dhaxeeya degmooyinka Qandala, Hawluula iyo isku shuban oo ah dhul baaxadiisu ballaaran tahay ayna ku nool yihiin kumanaan qoys oo xoolo dhaqato iyo danyar isugu jira. Waxaa laga soo sheegayaa inay soo food saartay xaalad biyo yaraan kadib markii uu jabay ceel biyood riig ah oo inta badan dadka deegaanadaasi ay ka cabbi jireen, qaybtoodna ay biyo la'aan ahaan u adeegsan jireen. marka haddan wuxuu kaabi jiray kaasuna wuxuu ahaa ceelkii magaaladu ka cabbi jiray oo riigga ahaa oo kan markuu biyo yareeyo baabuurta ay geli jireen. haddan magaaladii iyo ceelkii iyo magaalooyinkii badnaa ceelkan waxa weeye halkan waxa biyo u tahay saddex degmo. degmada Calula oo dhinacaan ah, Baargaal, Qandala, isku shuban waxa weeye waa Timirshi wixii isku shuban ka shaqeeya. meel kale oo biyo ma leh, boosaas agteedii dhaadar halkan lagu soo dhaamiyaa marka biyo la'aan dhacdo. waxa dhulka ku yaalina waa baraagana waa moqor inta biyo ka dhamaanayaan way. badina hadeer waxa weeye 50% biyo ka dhamaadeen baraaga. marka ceelkan maalintii waxa cabaa xoolaha, habeenkan waxa cabta baabuurta. dhibaatada waxa ku tahay qofkii shaqadiisii baan habeen iyo maalin haddana waxa weeye inta ila joogtay waa soo jeeday habeen iyo maalinba. sababta waxa weeye wixii baa qorshe ku socdo oo maalintii magaalada waxba loo qorsheynayaa oo habeenkii cabaysa waa loo dhaamiyaa. maalintii waa xoolihii baa waxay kuwa soo guuray oo bari ka soo guuray oo xays raacay oo soo noqday oo deegaamadoodii ay aad lahayn oo man yihiin oo iska degay iyo kuwa deegaanka joogay. xaaladda marka halkan haddaan si degdeg wax looga qaban oo ama ceelka bambada loo keenin waxay ku sugan tahay khatar. 3 sano hadda roomadiin iyadoo hadda roob la'aanta iyo jiilaalka iyo dhibtaas jidda hadda waxa ugu sii biiray ceelkii xooluhu ka cabbi jireen oo nolosha ahaa waa walba lagu noolaa dad iyo duuyo oo xumaaday. ceelka yaroo hadda la isugu yimid oo habeen iyo maalin aan laga tagin ee dhaankii xalay yimid wali joogo gawaarida iyo aan u qaybsamin karin. wallaahi xaaladdu waxa weeye xaalad xun weeye. ilaahay baa deeq leh oo waxa weeye uga baahanahay hay'adaha iyo dawladda waxaan uga baahanahay inay naga soo gaaraanin oo naga caawinaanin. waxaanu ka codsanaynaa in naloo keeno waxaanu ceelka ku dayactirano oo biyo kaga baadi doono oo birihii hawlaha fulin jiray oo ay bambadu ka mid tahay, matooradu ka mid yihiin, kulliba codsi baanu rabnaa oo waa idinka codsanaynaa. waxaa jira dhul baa lagu geeyaa waxa weeye biyaha dhul baa lagu geeyaa $500 booyada ku geysaa. maxaa birmiilka u dhigma karaa markaas idinba waa qiyaas ka dhaan wuxuu u dhigmo. marka waxa weeye dhibaatayahaasaa jira. hadda waddankaas saddex tulada aanu joogno baabuurta leel iyo nahaar ma kala mari karno. tulada dadka joogaana ma gabo, waxaas waa baabuurta dhaaminaysa. bulshooyinka ku nool tuulooyinkaasi kala duwan ee ka tirsan degmooyinka fogfog ee gobolka Bari waa kuwa qaba baahiyo kala duwan oo dhanka nolosha, marinka wadooyinka oo xun, marmarna ay u sii dheer tahay in kooxaha nabadiidka ah ay dhibaateeyaan dadka deegaanadaasi. dhulku waa ammaan, waxa weeye waa ciidan iyo wax waardiye ah iyo wax staff ah midna ma wadano. laakiin waxa la diidayaa taraaga dheer markii waxa weeye qofkii halkan ka taga ee ku safra Boosaaso wuxuu marayaa 48 saac oo jay ah u marayo. in macnaha dadka loo sameeyo waxa la yahay gargaar ilaah baa gargaar leh, laakiin la arko oo waqtiga iyo abaaraha iyo jilaalka iyo tibaatada meesha ka yidha kulliba la arko bay ku fiicnaan lahayd lana yimaado oo uu soo diro mas'uuliyiinta iyo dadka macnaha uu sameeyo ciidamada. meesha inta jidho oo gaarigu 5 saac ku mari lahaa 2 maalin iyo habeen buu maraa. caafimaadka xaqiisa qofkii jiranaayo laga qaado waxa laga arkaa gabdhihii ama dumarkii foosha inay jidka iskaga tiyaal lagu taadwayo dadar xumada taasay keenaysaa. caafimaad xumaduna hadii waa la jidaayo meel aan xarun caafimaad lahayn nasiib xumo weeye in yani goboladeen Puntland ugu fiicnaa isaas noqdaan. waxa weeye ka hor waxa dhacday hadda ka hor meeshan inay soo galeen niman kooxaha nabadiidka iskaashi ay sameeyeen ciidamada Puntland iyo dadka deegaanku in lagaga cayriyay goobta hadda aan taagnahana inuu ku dhex maray dagaal laguna jabiyay. dabayaqadooda ugu dambeysana la cadeeyay inay galeen buuraha shishe oo dhinaca cash ah. annaguna hadda ilaa 4 bilood 5 bilood inaanan goobtan iyo goobo u dhow ku arkin. dhulkuna uu sida nabad ku yahay. arrintu waxay tahay marka jidkan sidaad ogtihiin haddan ilaa 20 magaalo baa yaal
jidkuna haddii la yidhaahdo meel cidlo ah runta ha la marsho muhiimad keeni maayo laakiin haddii la magaalooyinka iyo dhulka deegaanka iyo dhulka ummaddu ku nooshahay ha la marsho dee waxa dhacda dadka inuu wax tara laakiin haddii kale waxyaalaha uu keeno xataa barakac waa ka mid ah sababtoo ay ku tahay dhulka magaalooyinka dadku way iska guurayaa dhulka laamiga buu tagayaa hadda inuusan nafac badanna ka helin waa dhacda waxa ugu weyn oo lagu joogaa meesha nabadgelyo wax kale oo asxaana oo dhaqdhaqaaqa oo waa idinka muuqan lahaayeen baan filaya baahida ugu badan waanu idin sheegnay dariiqi waa ka daana waxaan nahay Puntland baan ka mid nahay haddana waxaan loo baxshay bari gaariwa xoolaha maanta Puntland laga maamulo oo cashuuraha laga baxshana bari bay ka tagaaniin waxaan rabnaa marka xuquuqda aanu leenahay anagu waxa aanu leenahay oo xuquuq ah oo wadaninimo ah oo maxaan ku sheegay cashuurta waan ka qaadaa oo maxaan ku sheegay in wax nolol ku qabto iskooladii ceelashi caafimaadkii maxaan ku sheegay waa la arkayo tuulooyinka ma leh caafimaadka halkaas laga qaadaa wadadii maraaniina waa la arkay halka qofkii laga qaadaa laba habeen ilaa maalin wuxuu ku jiraa jidka aanu ka codsanaynaa dadka ku shaqale wadada oo wadada hogaaminaya inay soo mariyaan baldhidin inaanu naf iyo maalba aanu diyaar u nahay inaanu xoog iyo xeelad iyo maskax kulliba aanu muruq iyo maalba aanu diyaar u nahay baanu sheegaynaa xoolo aad naga qaadaysaan cashuurta aad naga qaadaysaan war wax yar kan ay ku tahay bal biyo kaliya noo qabto biyaha kaliya noo soo saara bal dariiqa kaliya noo soo marsiya walaalayaal dariiqa kaliya bal cusbitaalkii bal wax kasta bal maxaad noo qabatay bal maxaynu taraynaa bal maxaynu isku sheeganaynaa maxaynu ehel ku nahay maxaynu dawlad ku nahay maxaynu annaguna lacagti baan bixinaynaa idinkuna cunaysaan waxna noo qaban misaanin deegaanka Balidhidin waxaa ku yaala isbitaal muhiim ah oo ay dhismihiisa gacan ka geystay dowladda dhexe ee Soomaaliya ha qabtirana baahiyaha caafimaad ee deegaanadaasi balse u baahan dhamaystirka adeegyo badan oo dhanka caafimaadka ah waxa weeye baahida jirta oo ah raajo ma laha cusbitaalku qolkii qaliinka ma laha qolkii meydka ma laha qolkeyd ma laha booyad biyaha u keenta ma laha booyada biyaha waa la gadaa waxa weeye xitaa mar baa laga soo gadaa magaalada dhexdeeda markii biyo laga waayo waxa laga soo gadaa buq meel la yiraahdo baabuurkana wuxuu keenay ilaa $250 taas waxaanu ku seef garaynaa wixii aanu faradhaqi iyo adeegii iyo cusbitaalka ambalaas joogto ah ma lihin ambalaastiyadu waxa weeye waa ambalaas daashay oo waqti badan soo jirtay soona shaqaysay sida aad u ogtihiin idinkuba kana soo shaqayn jirtay buurta kadibna halkan loo soo wareejiyay male biyo haddii cusbitaal geedkiisa saata noqday oo dhirtiisa saa noqotay oo aan meel biyo loogu shuba lahayn oo booyad biyo loogu keeno lahayn oo meel haddii roob ku qabto markuu qabto loogu keediyo lahayn maxaa noloshiisa geedkii baa dhintay ma qof baa noolaanay يوسف محمد محمود وربعين تقرن كالصوماليات مقالة الجروة